الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وحليه نفتي سا روحي لح شيء يقد ضمانة قاضة شنو ضمانة قاضية روحي لح شيء فولية إلالية نفتي سكو إلزامية ضمانة دا لغهلو أنا ونتشنى أن ضمانة قاضية أبو النبي صلى الله عليه وسلم كل جن waxaan ugu jecelahay maanta waxa weeye inaan janno galno ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisana aan ka badbaadno bishaara aan maanta helana waxa noogu qaalisan in loogu bishaareeyo in ilaahay cadaabkiisana aan ka nabadgelayno jannana galayno sidaas daraadeed bay tahay hadafka iyo qaayada ruuxa mu'minka ah uu u dadaalayo masaajidka waxa ina soo galiyay waa taa jannaan raadinayna cadaabna waa ka carrayna sidaas daraadeed baa waxa laga maarmaana asbaabta jannada lagu gaadho cadaabkana lagaga badbaado inuu ruuxu ku dadaalo kaliya tawaan jeclahay oo qalbigaan ka rabaa waxba aan ficimayso waxa laga maarmaana inuu ruuxu ku daro dadaal iyo sacyi inuu ku daro sida rabbi quraanka kariimka inoo sheegay ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا روحي آخرة دوني دي سنة ددال كدرة وان ربا كلي وقلبي كان كتش على هيكو أنفع ميس أنا كوتري ميس وسعى لها سعيها شق ذا عمل واحد شراء أيضا أيلاض عمل كذين اللي مات لأن الجنة ربي تبارك وتعالى وقالي وبدع قالي يا سيد النبي قلت المام صلى الله عليه وسلم بدعه هذي قالي تهين الشيء قالي يا قوي العق قالي يا لقو إبسدا بلا شماه وحني والبؤ دردري سيقل يا جماعة سلعة إلهي بدعدي سوى قالي بدعد الله نوات الجنة أبو النبي صلوات ربي وسلام عليه بدعد قالي جاء وإن الله تماد وح قالي أو بإذن الله كوجويا إلهي با جنة بحي لكن أسباب باجرت لحدا شيء النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم وحي كمي تاي مركا وحي لها جنة السبب كوغن نقون كري وحي لحدا أقوه الرئيسي النبي صلى الله عليه وسلم اصدقوا إذا حدثتم مركات شيكين إنسان رون شيئا رون تكود دال حديث كالي النبي قلت صلى الله عليه وسلم runtu ruuxa waxay ku hanuunisaa oo gaarsiisaa biriga iyo wanaaga wixii wanaag oo dhan furihiisu waa runta wanaaga runtu ku gaarsiisayna isaguna wuxuu kugu hanuuninayaa ku gaarsiinayaa jannada rabbi Allah quraanka kariimka wuxuu ku leeyahay dadka mu'miniinta ah oo ilaahay ka baqa runna sheega kuwa runta sheegaya ka mid noqda نبينا وحل ويدي صلوات ربي وسلامه عليه مؤمنك رسولك إلهي وبين مشيغا ما يبوي بين مشيغا دقنك بينتو ودقنك منافقين تأيي قالذا خاصة صفة وحا قوني أولي ضدك منافقين تا يقع عنكوا عقيدة دي عمل كودي هذا الكودي دقن كودي كل بينبكو سليسين saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markuu ka waramayay munaafiqiinta tilmaamahooda wuxuu ugu hormariyay nabigu sallallahu alayhi wasallam ida hadatha kadab markuu sheekaynayo been buu sheegaa waa munaafiq amma mu'minka asagu waa runta hadaadan ku dadaalin oo beenaala noqoto waxa ku sugayay waa waciid adag wahay marka in runta lagu dadaalo beenta la iska ilaaliyo waa qodobka u horeeyo qodobka labaadi wax weeyaan oo nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam awfu idha wa'adtum markaad wax yaboohdaan dadka wax u ballan qaadaan
ballanta oofiya oo fuliya dadka ballanta ha uga bixina ahdiga ha uga bixina ballanqaadka ha uga bixina ayadana waa tilmaanta munaafiqiinta nabigu uu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam ida wa'ada akhlaf markuu ballan galo oo shay ballan qaado ballanta waa ka baxa aguubiye laha mu'minkuna waa cagsi waa ballanta kama baxo ballanta cidda uu la galay ha noqoto gaal ha u ballan ha u qaado muslim ha u qaado ninuu jecel yahay ha u qaado miduu neceb yahay ha u qaado ballantu waa ballan ballantuna waa diin ruuxan ballan lahayn diin male ruuxan ahdi iyo ballan lahayn diin male sidaas daraadeed ba nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku daray asbaabta ugu muhiimsan oo ilaahay jannadiisa lagu galo wuxuu ku daray ida addu aw awfu ida wa'adtum quraanka kariimkana rabbi tabaaraka wa ta'ala quraanka iyo sunnadu waa isfasirayaan waa isleeyihiin maxay ilaa nabigu sallallahu alayhi wasallam ahadiistiisan quraanku ku sharxaya sidaas daraadeed ba quraankuna wuxuu inagu yiri dadka mu'miniinta ilaahay jannadiisa galaya firdawsa galaya jannada rabbi galaya sifaadkoodii iyo tilmaamahooda markuu rabbi tilmaamayay wuxuu ku tilmaamay ballantoodii ahdigooday ilaaliyaan sidaasay jannada ku mudanayaan saas daraadeed ballanta ilaali sidaasuu ahaan jiray nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi beenna dadka ha u sheegin waxa dhacday hadda ka hor kama fi musnad ahmad wa ghayri hadith abdullah ibn amir rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ayaa guriga naga yimid buu yiri ilma yar baan ahay buu markaas markuu nabigu guriga yimid ayaa waxaan damcay buu yiri inaan baxo si aan u soo ciyaaro markaan baxay oo dhaqaaqay way hooyo iyo dhabitur ya abdullah ta'al abdullah hooyo kaalay aan wax ku siiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam meeshaasuu ka soo galay marka maxaad rabtay inaad siiso ku yiri waa ilmo yar oo dhashay waay oo ciyaar u kacay oo soo ceshanayso hooyo kaalay aan ku siiyay nabigu wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam maxaad siin rabtay timir baan siin rabay beetir markaas nabigu wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam ama innaki law lam taf'ali la kutibat alayki kadhba hadadan saayeli lahayn waxa lagu qori lahaa been baa lagu qori lahaa imisaan ku sameeyna caruurteena oo ku sasabanna oo ugu yeedna oo been u sheegna oo ballanta uga baxna waa caruurtaadii waa caruurtaadii haday sidaas tahay aadamihii kale ka waran marka sidaas daraadeed diintani waa diin weyn waa diin cadiim ah waa diin qiyam la waay qiyamkeedana dadkeeda in laga arkiyo mujtamacaadka rumaysan la doonayo waay sidaas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ina baraya waxyaalaha ugu muhiimsan ee loo soo saaray lala soo diray waxay ahayd inuu ummadaha inuu u dhameystiro akhlaaqda wanaagsan dhaqanka wanaagsan muaamalada wanaagsan inuu dhameystiro waxba sii jiray oo ummaduhu sii haysteen inta ka dhiman inuu u dhameystiro ayaa nabi maxamed loo soo saaray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ruuxan akhlaaq lahayn marka diin male waa inaad akhlaaqdaada ilaaliso qiyamkaaga ka muslim inaad ilaaliso la doonayo qodobka wadamay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qodobka xiga hadii leedin aamino amaanada gutta amaana waxa uu weyn midii alla nala galay amaanada xigta waa mas'uuliyaadka guudeed ummadda u hayso waa amaano amaanada xigta ay waa ta dhaxdiina taalood isku aaminaysaan oo xoolo iyo sir iyo masaalix kala amaanada lagugu amaansaday gudo oo ilaali الله تاسو إن أمر يا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله وحو إذن أمر يا أمانات كإن أجدتان عدي إسكالهيد إهل كذا أجد حفظي إلالي إسك إلالي ضيع كإلالي سيدا لو جدن كرو سيدا أجو قيمها بدن أجو في عن أجدو وحيالها ضيع ما يبيضنا كميته
wuxuu nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaam calayh maantana aan ku sugannahay inay ammaanadu lumi doonto markii hore qalbiga dadka ilaahay ku abuuray ammaanada iyo wanaaggeeda kadibna waxyiga yimid oo quraanka iyo sunnada ay markaasay sii adkeeyeen ammaanadu gadaal dambe quluubta waa laga saari doonaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam dadku waa lumin doonaan ammaanada ilaa la yiraahdo ree hebel waxa dhex jooga oo kamida waa reer dhan waa deegaan dhan waa ummad dhan ayaa waxa leeyahay hal nin oo aamina dhex jooga hebel ba aamin dadkii intoodii kalena khawanay noqdeen maanta midda taagan waay wadaad male oo waranla male oo mid weyn male oo mid yar male oo rag male oo dumar male oo amaanadii lunta xaaladaas xaalad khatar ah amaanaadka haddaan la ilaalinin waa la dayacmaya ruuxan amaano lahayn diin male qodobka xigay nabigu salawaatu rabbi wasalaam alayhi tilmaamay wax weeyay damaanad hadaad ilayidinka helo ilaalisan jannad galeysaan wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ihfadhu furujakum xubnihiina taranka xifdiyo ilaaliya xubinka taranka ka ilaali zinada ka ilaali faaxishada shahwadaada si khalada inaad u gudato ka ilaali waa wax ilaahay kugu imtixaanay waa wax ilaahay ku galiyay hadii lagu galiyayna waxa lagu darayo ilaahay kugu kabay sida xayawaanka kale to shahwa mujarrada inta lagu galiyay laguma siideynin laakiin rabbiga shahwada ku galiyay baa wuxuu hadana ku siiyay aqli wuxuu ku soo dajiyay sharci loogu talagalay inuu xakameeyo shahwadan aad ku ibtilaysantahay xoolaha iyo adduunyada inaad kaga gudwanaataa la doonaya laakiin sida xoolihii iyo adduunyadii oo kale la foofin jiray meel alla meeshaad aragtaba inaad kula dhacdo sida maanta gaaladu yihiin yaani wax weeyaan muxuu ahay dhaqankooda maya muslim baa tahay xubinkaaga taranka xifdi si jannada ilaahay aad ku gasho sidaas daraadeed baa allah tabaaraka wa tacaala dadka jannada mudan markuu tilmaamay quraanka kariimka sifaadkooda waxa kamida walladina hum li furujihim xaafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin xubnihooda tarankay xifdiyaan zinada iyo qashinkay ka xifdiyaan illa xaasaskoodii adoomadooda mooyaan meel xalaalay ku gutaan xaraamtana waa ka ilaaliyaan nabigeenu salawaatu rabbi wasalaam alayhi markuu tilmaamay dumarka asbaabta ay jannada ku galaan waxa nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo uu ku daray haweenaydii shanteeda tukata bisheeda ramadaanna soonta zawjkeedana adeecda xubinkeeda tarankana xifdida maalinta qiyaamada waxa la dhahayaa iridaha jannada ka doonta ka gal xubinkeeda tarankana xifdida marka waa in la ilaaliyo shariicadeenu waa shariicad xikmad ku salaysan asbaabta dambiga keenaysa intay fasaxdo dadka dambiga uun kama celiso laakiin xataa jidadkii loo soo marayay bay sii xidhaa jidadka xumaanta loo soo maray marka hore sii xidhaa oo sii awda kadibna waxa lagu yiraahdaa iska ilaali qodobka shanaad baa marka ku imaanayo nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam arinta shanaad indhihiina laaba soo janna ma rabtid indhahaaga xumaanta ka laaba daawashada xaaraanta ka laaba filimada khaldan ee daawanaysa ka laaba naagaha qaaqaawan ee daawanaysa ka laaba muharramaadka ilaahay ku diiday indhahaagu ay ku fasaxan yihiin ka celi sababtu maxay tahay laana wax weeye daawashadan aad xumaanta daawanaysaay leeb qalbigaaga ku dhacay way ibliis baa isticmaalaya kadibna qariizadii shahwada buu qalbigaaga ku rogrogayaayo ku kicinaya halkaasay aafaba ka bilaabataaba sahankii ugu horeeyay oo zina iyo xumaan baa ku gashay markaas waxa loo baahanyahay marka indhaha laaba saas daraadeed baa rabbigan quraanka kariimka wuxuu ku sheegay mu'miniinta ragga ana waa kula hadlay kuwa dumarkana waa kula hadlay rabbi wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala nabi maxamed oo mu'miniinta ragga ah waxaad ku tiraahdaa indhihiina laaba halaabeene inay indhahooda laabaan baa u dahirnaan badan waxay sameeynayaanna alla waa ogsoon yahay mu'minaadka dumarka ah ee ilaahay rumaysan ayagana ku dhaho u sheeg indhahooda halaabeen
xubinkooda tarankana ha xifdiyeen u fiirsada xubinkooda tarankana ha xifdiyeen xifdiga xubinka taranka isha oo la laabaa asaas u ah lianna meesha ugu horreysa aafadu ka bilaabata waa isha shalay waxay ahaan jirtay haweenay dumar oo jidka maraysa keliyaatu inay ishaadu ku dhacdo laakiin maanta meel walba leeno galay telefishanaha guryaha inoo yaallo dhex taala internetkii baa telefoonada inoogu wada furan oo naagihii qaawinaa iyo qashinkii baa ka buuxa adoo ku talagelin baa 100 barnaamij oo xayeysiisa telefoonkaaga ku soo dhacaya ama kombiyuutarkaaga oo qashin wada socda indhihi la laabay waa la aafaysan yahay marka aafadad sidaas daraadeed baa waxaan dhacahaya iyo noloshan isbedeshay iyo quluubtan qallashay iyo dareen la'aantan iyo diin xumadan iyo waxan socotahay asbaabteeda taasa keenaysa marka indhihiina laaba si aad xubinka u ilaalisaan ha noqonin xayawaanaadkan gaaladoo kale rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala inay sida xoolaha oo kale yihiin xoolo foofay oo kale ma tihid addoon ilaahay abuuray baa tahay ilaahay baa ku dili doona rabbigaa baad u noqon doontaa asagaa kula xisaabtami doona diin qiimo badan buu kuu soo dejiyey oo rabbi tabaaraka wa tacaala ku siiyey oo kugu khasisay adigoo sidaasa gaal qaawan oo qashina oo aan kaadida iska dhaqaynin sidiisoo kale inaad u dhaqanto ma aha ama dhaqankiisoo kaleeta inaad qaadato ma aha muslim baa tahay waana ka qiimo badan tahay waxa noocaas oo kale inaad ku wasaqow sidaas daraaddeed is-ilaali oo rabbigaa ka baq tabaaraka wa tacaala qodobka u dambeeya nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ku tilmaamay 6 shay ee hadaad ilaaliso janno lagu damaana qaadayo gacmihiina celiya buu nabigu yiri salawaatu rabbi wasallam alayhi gacanta laab gacanta xakamee gacantaada qabo maxaad ka qaban xaaraanta ka qabo naagaha ajnabiga ka dumarka ajnabiga ka asalaantoodu waa xaaraan gacanta u dhiibin gacantaada inaad wax disho ha u taagin gacantaada inaad wax dharbaaxda ha u taagin gacantaada inaad dib ku geysato ha u taagin gacanta celi hatta hadaad xanaaqsan tahay hatta hadaad colaad qaado hatta hadaad dareen qaado gacanta celi isxakamee allah tabaaraka wa tacaala adoonkiisaas wax ku siiya sidaasaad ilaahay wax kaga heli tabaaraka wa tacaala kuffa yadak عن المحرمات قعنت هذا حارانت كقبو اسألي قعنت إيش عربك لقت حبنه جواريح ده مركز حكم يسو وتكأت كاتو وطريق إلهي حدود دي سيسوه دي مها كعل عليسو مركز هذا إلهي كان أكتيس كل هذا تبارك وتعالى هذا ديالي وإذا ما أوض فصحدود فراها كقادو مركزي وحوي ضمانة دا ما هي ستيت وحد كدن بين دونتنا حال كاغا الله أعلم صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله